Mama. Baba. Mama. Baba. Mama. ugu horeeyay ee wadar xabaaleedkii dadka loo sameeyay kontonka qof waxaan ogeyn inay ahaayeen dad Soomaali ah oo dadkan Soomaalida hadda dadka ay ku tuhmahayaan iyo qabiilka ay ku tuhmahayaan midna aan ahayn Soomaali ah waliba inta dawlad deegaanka u dhalatay dadka lagu tuhmayo Soomaali badan dawlad deegaanka degta haba loo kala badnaaday laakiin aysan ahayn Soomaalida kale ay ahayd ama Somaliland ka timid ama Boorama ka timid ama meelaha Soomaaliya ka timid Soomaali Oromo waxay u leeynaysaa Soomaali they don't care about qabiil baysan kala soocaynin dad baysan kala soocaynin ayaga Soomaali waa u Soomaali marka Soomaaliya waxa idin damir xumo ah aniga Muqdisho waa gurigeygi saddexaad waa gurigeygi labaad waa meeshan ku soo koray runtii iyo meel kastaba marka waxaan damir xumo ah runtii anigu aan damir xumo u arkaa iyo dad badan oo kale dadkan masaakiinta ah shacabka ah lagu xusuuqay markaan saaka la hadlay wallahi dhiikar baa igu dhici gaaray dadkan lagu leeyahay waa 80 qof ma aha 80 qof waxaan idin yiri war 300 dadkan kore u dhaafeen la xasuuqay ee masaakiinta intii meel lagu soo ururiyay la yiri waa la idin ilaalinayaa ay ciidamadii ilaalinayeen ay ka tageen reason baa looga tagay marka waxaan rabaa inaan idin sheego Oromo Soomaalinimo u leeynaysa qabiil gooniyana ma raadsanayso dad gooniyana ma raadsanayso qoomiyad gooniyana ma raadsanayso I was wondering waxaan ka yaabanahay waxa weeyaan waxa aad arinta aad uga qayb qaadan laadihiin oo annaga markii xamar Muqdisho ay ka dhacdo dagaal uu ka dhacana aan waxa weeyaan u qiiroono u jidboono oo uga hadalno oo waxaan ku iri qarxiiso waxaan ku iri almost dadka waxaan ku iri everybody kamida qof sorry Soomaali qof aan ka hadlin qaraxaas ma jiro dibta ka dhacda meel kasta qof aan ka hadlin ma jiro ee ay u maleynayaan dadkan Soomaalida la laayay inay reer kilil kaliya yihiin waxa Oromo ay u socotana ay u moodin inay reer kilil kaliya tiin Soomaali Oromo ma kala saaraysa mana kala jecla ilaa iyo jigjiga ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo Jubbaland ilaa dhulka Soomaali degto dhan bay Oromo ma aragtay u dhaarsantahay leedahay annaga iskale waxay ku socdaan xaq darro weeyaan marka anu waxaan idin leeyahay arintan waa inaad ka hadashaan regardless of hadaa Ethiopia ka timid Ethiopia ku dhalatay iyo hadaa xamar ka timid oo ku dhalatay iyo hadaa meel kale Soomaaliya ku dhalatayba wherever ku dhalatay ama hadaa Puntland ku dhalatay ama hadaa Galmudug ku dhalatay you name it Soomaali waa un Soomaali aniga shakhsi baan ahay qabiil nacayb igu ma jiro wala laga yaabaa waxyaalo qaldan inaan sheego sideedana dad markay wax maartay sameeyaan qabiilkooda un baa loo soo qaadanaya laakiin wallahi oo billahi oo tallaahi baan qof Soomaali ah oo dhibaataysan regardless meesha uu joogo hadaan wax u qaban karin jirkayga danqada oo dibaax shabaan idin sheegi maayo mana isku amaanayo mana isku faaninayo marka we all in one walaalayaal hal baynu nahay qabiiladan iyo gobolkan iyo waxyaalahan aad u jeedaan Soomaali waa wax lagu mashquulinayo oo ayada la isku mashquuliyo runta markaad rabtaan Soomaaliya waa hal qoys waxa la fahmay Soomaali meeshii ay ka liigaraysay baa la fahmay in ay tahay beel iyo qabiil in loo kala bixiyo si ayagu awoodooda iyo powerkooda uusan isu qabsanin marka anu waxaan garan laahay waxa ay Soomaali uga aamusan tahay Facebooka inta aan arkay waa dad yar oo ka hadlaya arintan dhibaatadan ay Oromadu ku sameysay waxaan leeyahay shacabka dadka masaakiinta ee dumarka iyo caruurta ee la xasuuqay ay ku sameysay ee ay ku sameynayeen waxa weeyaan horeyna cid Soomaali uga hadashay ma arkin few people baa ka hadlay haddana waxa weeyaan cid kale oo ka hadashay dhowr qof baa ka hadashay ana waxaan idin sheegayaa ninka Oromiga ah ee kilka Oromiya madaxweynaha ka ah iyo midka askariga ah ee qoriga haysta Soomaali inay Soomaali u tahay
soomaali inay soomaali u tahay inaysan idin kala jeclayn inaad ka dhiidhidaan haddii kala soo maaha maanta haddaad aamustaan ad u aamustaan because kililka keliya ka soo jeeda annaguna beri waa aamusaynaa dhibaatadiina waa ka aamusaynaa waana ka gaabsanaynaa lianna cadaawad weeyaan waxaas dad soomaali ah oo aan la kala soocin inaad aamustaan soomaaliyey yaa qofkii damiir leh waa inuu kaco weeyaan annaga waxa idin qarxinahayay Soomaaliya qarxinahayay meel kasta ama hadday boosaaso tahay ama hadday gaalkacyo tahay ama hadday xamar tahay yaa dhibaatada ka waday waa kuwa Soomaaliya oo magac la baxay oo dadka shacabka aleynahayay macaadallaahi waa dad ayagu raba inay Soomaali dhulkeeda qaataan oo la haba dhulkan annaga iskala dhulkoodi ku filan waay oo boob iyo dagaal iyo dhac u socda oo dadkiini leynahaya baad ka aaminsan tihiin maxaa tihiin maxaa idinku qiyaasnaa ma cadowgeena tihiin oo ayaga ka daran tihiin dadkan la leynahayo aniga family iyo ehel iyo midna iguma jiro laakiin Soomaalinima ay damqaysaa aniga waa dad Soomaaliya waa dad walaalaheena waa dad maxaf iyo maxaa la dhahay maati ah maanan anagu Soomaali ahayn warmaanan muslim ahayn warmaanan bini aadan ahayn way aad oga hadli laadiin arintan oo u fiirsanaysaan Soomaaliga mise waxaad doonaysaan beritoole in idinkana laydin aamuso taas hadaad rabtaan xeerkaad goyseen weeye idinkana waa laydin aamusi beritoole laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego oo aan rabaa inaad ogaataan kolay dadka la dilay qabiiladoodana waa la soo qori doonaa haday nagu kalifto weeyaan hadday dadku Soomaalida kale ay u haysato inay hal beel ka soo jeedaan dadkaani ya ama hal region ay ka soo jeedaan Soomaali waa u Soomaali Oromo they don't care about it marka anigu waxaan idin dhihi lahaa intaad kor isu qaadaan oo damiirkiina kor u qaadaan oo dadnimadiina aad kor u qaadaan show support iyo condemning dadkan waxa ay sameynayaan inaad ka xuntiin facebookyadiina ku soo post gareey Soomaaliyay isku xishoodo oo isdaba qabta kontankii qof ee wadar xawaaleedka loo sameeyayna Soomaali bay ahaayeen inta 300 hadda la leynahayna waa Soomaali waa caruur iyo hooyooyin iyo rag masaakiin oo aan waxba haysanin familiyaal imagine fakaran idin anigu dib maaragtay u fakara xisaabtamana